wax kale looma targetsan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta waxaan u sheegaynaa marka koobaad annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meesha ka dhacday annaga oo u tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho ha ku burburto runtii waxaan leenahay ilaahay sabir ha idinka siiyo ilaahayna wax ka khayr badan ha idinku bedelo nimankii ama khawaarijtii u maleynaysa magaalada Beledweyne inay kaligeed tahay waxaan u sheegaynaa inaysan kaligeed ahayn marka koobaad Beledweyne kaligeed ma aha Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira Beledweyne bani aadamka Ilaahay abuuray ee miirka qabo dhan ayaa la jira sidaa darteed waxaan leenahay Beledweyne kaligeed ma aha Beledweyne maniyad jabayso Beledweyne jihaadkii ay waday way sii 3 jabaartay haddaba wayna sii 3 jabaaraysaa hadii la yiraahdo wayna sii 6 jabaari doontaa dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumaddu ugu horeysana ayaga ayay la jiraan dhinac walbana way ka taagan yihiin intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed hadday jirto Soomaalinimo hadday jirto muslimnimo hadday jirto in wax la isu yahay qof kasto Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed reer Banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisiinayo reer Jubbaland reer South West reer Hiiraan ma aha reer Hirshabeelle reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Somaliland Soomaalinimo hadday jirto waxa la idinka rabaa meeshan in la idinka arkaa la rabo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay cadeeyaan Beledweyne inaysan kaligeed ahayn Beledweyne inay walaalo leedahay inay dad garab taagan ay leedahay waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan Beledweyne inaysan kaligeed ahayn waxaan rabaa dadka qurba joogta inay soo abaabulaan waxaan rabaa in kaligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka hore ku jiraan laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayaan ka rabaa waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan ka rabaa inay meeshan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn gurmadkoodaan rabaa qof kasto Soomaaliya waxaan rabaa Beledweyne inuu yimaado waa markaan aan ku celinayaa hadday jirto muslimnimo hadday jirto Soomaalinimo hadii wax la isu yahay waa hadday dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada la dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo waa inay Beledweyne imaadaan dawlad goboleedyada dadka jooga waa inaan halkan ka helnaa civil society-ga dadka Soomaaliyeed ee ah hay'adaha ama ururada civil society-ga waa in halkan laga helaa shaqadoodii waata shaqada laga rabo waatan waa inay u soo gargaaraan waa inay garab istaagaan magaalada Beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan waa in la garab istaagaan xukuumadda dan qaran ayadoo ka jawaabaysa hawlahan cadaynaysa inay garab taagan tahay shacabkeeda gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo reer Hiiraan waxay marka koobaad ay ku dhaqaaqday oo diyaar la tahay gurmad degdeg ah ilaa 20,000 oo qof raashin ku filan Maxamuud baa jooga oo hay'adda maareynta musiibooyinka oo diyaar la si degdeg ah u soo gaaraysa hadii la yiraahdo waxa runtii aan ku faraxsanahay ayadana biyaha marka loo yimaado in ay diyaar la yihiin 3 ceel oo ceel gacmeedka loo yaqaano iyo 2 ceel oo riigag ah ayaa diyaar ah oo ay wasaaradda biyuhu ayaduna si degdeg ah hadii la yiraahdo ay uga helgelin doontaa meesha waxa kale oo jiri doona oo aan ugu bishaaraynayaa xoog dalka Soomaaliyeed iyo dulmidiid geesiyaasha dulmidiid wasaaradda biyaha iyo energy waxay diyaar la tahay ayadana in ay biyo dhaamin u sameeyso ciidamada furinta jooga hadii la yiraahdo oo biyo dhaamin loo sameeyo wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay sahay dawo oo ku filan ayay diyaar la tahay oo diyaar ah oo keenaysa inta waxa dheer
shaqaale caafimaad dhakhaatiir ayay diyaar la tahay oo insha Allah xooga dalka iyo dulmidiid la socon doona oo ka shaqeyn doona hawshaas hadii la yiraahdo oo diyaar ah waxa kale oo ay diyaar la tahay wasaaraddu soo diyaarisay oo diyaara laba ambulance ama ambulance loo yaqaano laba gaari oo ah oo gurmadka degdega loogu talagalay iyaguna waa diyaar dii la yiraahdo oo xukuumaddu keenaysa waxay diyaar la tahay wasaaradda amniga insha Allah ayagana si degdega ayaguna ay diyaar la yihiin ugu yaraan laba baabuur oo baabuurtan Cabdibilah loo yaqaano insha Allah oo ciidanka ay kaashadaan hadii la yiraahdo diyaar bay leeyihiin waxyaabo kale oo aan dhaxda ku soo jirana waa jiraan dhiirigelinta ciidamada waa Khadija nala joogta oo insha Allah horeyna uga aragteen hadeertana magaalada Xamar gabagabayn doonta iyo gabdhaha Soomaaliyeed waana maanaya gabdhaha Soomaaliyeed waxaana ka rabaa kulligood ayaga isla socda halka inay soo istaagaan ayaga oo wada sahaydii iyo wixii lagu yaqiinay deeqsinimadii mar kale waxaan ku celinayaa dadka reer Hiiraan haniyad jabina kaligiin ma tihidiin waa la idin la joogaa horaa la idin ka jiraa gadaal waa la idin ka jiraa labada dhinacna waa la idin ka jiraa Soomaaliya way xorowday sharaf baad iyo cinwaanad xurriyada u tiin marka waan idin amaanaynaa guul baan idin rajaynayaa intii idin ka shahiidayna waa shuhado Allah naxariisto inta nool sharaf iyo karaamo iyo qiimo ay ku joogaan Soomaalina ku daysatay halkan waxa jooga waxay noqotay furuntii dhammaan looga diray ciidamada meelaha la haysto oo laga xoreyn lahaa hadday joogaan kuwa meelo kale u socda oo si maraya hadii la yiraahdo kuwa kalena way imaan doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan waana u mahadcelinayaa mar labaad dadka reer Hiiraan gaar ahaan dadka magaalada Beledweyne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.